waa hagaag daawadayaal warar degdeg ah ayaa hadda markaasi ina soo gaaray oo sheegaya kooxo hubeysan oo caawa degmada hodan ee magaalada muqdisho ku dhaawacay haddan ay idila hadlayno bilaal bulshaawi oo caan ka ahaa baraha bulshada aadna loogu yaqaanay magaca madaxweynaha tiktok wiil ka mid ah ehelada bilaal bulshaawi ayaana markaasi noo sheegay oo aynu wacnay in bilaal markaasi 2 xabadood looga dhuftay dhegta iyo afka inkastoo uusan sheegin sababta markaasi loo weeraray dhaawac halis ah ayaa goobta laga qaaday bilaal iyo qof kaleeto markaasi la socday oo la fadhiyay falkan ayaana ka dhacay makhaayad ku taala gaarka isgoyska banaadir ee magaalada muqdisho halkaasoo inta badan bilaal bulshaawi lagu arki jiray weli ma jirto cid faahfaahin rasmi ah ka bixisay xaaladda uu ku sugan yahay bilaal bulshaawi oo dhaawacay isbitaalka markaasi loola cararay sidoo kaleetana lama oga sababta markaasi loo beegsaday inta badanna daawade magaalada muqdisho waxaa ka jira tuugo xilliyada habeenkii ah dadka markaasi dhac u geysta taleefanadana ka qaata iyo agabyada kaleeta ay wataan kuwaasoo mararka qaarna dilaba qofkana ay markaasi dhaawacaan wixii warar ah ee kusoo kordhaa markaasi wararkaasi bilaal bulshaawi oo la dhaawacayna waxaad kala socon doontaan bogga ama markaasi youtube-ka wariye cabdiqadir maxamed kalgacal soo dhawaada daawadayaal